دشو أنا محمد عبد الحليم مسؤول كإرتبوتي صوماليا وحرنا يرك هذا المرء أرمها حاج في أمراض الدولة كديجو إرتبوتي سيدا أوبرتين وحيك شغالي سبودان سفر هذا دولة كي دبدة مرك هذا وحلا كلي موسيقى حاج كي أمراض حنسو ديارنا إن أمراض حاج كشغالين الدولة كديجو مرك وحماتنا لجوا شركته kale Soomaaliya xajka la siiyay marka waxaan ka wada hadalno ka shaqeyno isugu tagno midsimida uga shaqeyno xajka soo socda insha Allah amrada marka waxa maanta na soo booqday professor AB Arkaysan oo kamid ah mas'uuliyiintii ku guuleystay in xajka shaqeeyaan oo mas'uul ka ah shirkadda African Express annagana Djibouti waxaan diyaarinahay inaan la shaqeyno asaga sheegi doona marka waxa ay ugu talagaleen xajka iyo sida loo shaqeeyo annaga laakiin Djibouti waxaan diyaar u nahay company kasta iyo qolo kasta oo rabteen xaj laga shaqeeyo inaan kala shaqeyno annaguna diyaar u nahay ugu talagalay amura xajka iyo amrada waxa kaloo inaan ku daro uga faa'iideysan meeshan waxaan bilaabaynaa dhawaan Masar iyo Suudaan saasoo kale Yemen waa ka shaqeysaa marka إن أحسن رنا إن كارنو دولماتك وسودوينا بروسارك شركتها نلسو حريري أو رواينا نرى شقيان استعمال إرتبوتي بركة ذاتك حجيلة هم شارينا إن راعي دونا ديار عصب وجديد إن شاء الله هي قيمة جوال تي في ذا قرنكا وهمتي ما تنقصوا بوقضي حفيزك شركة دا إرتبوتي بريسكي كله مهمة قارو لي هاي وحرنا مركه هرينا هاد علينا الله أود سر له الله سبحانه وتعالى نقوم كنية صوماليا نبت ينول يوناق يشرف ومد الصومالية إلهي سبحانه وتعالى سيء دولة نبت ده قوت النوم الحمد لله رب العالمين وحنوم هاد علينا وزارة أوقافتي دينته وحنوم هاد علينا رتي مدح هذا قرن كأوور مدحونها برايم مينستر كقدام البرلمان ورد جهد بدن قليل arrintan ayada ah inay meel marto waxaan leenahay mahadsanidin ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan kaga baryaynaa guul iyo mataqaanaa barwaaqo dalkan inaad ku hogaamisaan haddii la raali ka noqdo waxaad arkaysaan in ay go'aan gaartay dowladda oo runtii geesinimo badan u baahnaa geesinimadaas waxaa usii dheer in ay fiirisay uturidda shacbigooda oo ah in ay helaan jaanisyo badan ay ku kala gooshi karaan jaanisyo badan ay ku xajin karaan meel walbana uga xajin karaan sanadkan oo ogtiin 5 shirkadood baa laga dhigay shirkadii waaweynaa oo mataqaanaa Soomaaliyeed sida Jubba, Dano, African Express, Ocean, Freedom intaas buu xajkii waa la siiyay sanadkan si mataqaanaa ay dadkii xujaajta ay u qaadaan una meel mariyaan mataqaanaa waajibaadkii Allah subhanahu wa ta'ala diyuuf rahmaanka saaray ilaahayna runtii uu yiri hatta man istata ilay sabiilan ninkii kari karo ha ka baaqana xajkaada soo gudo waa rugniga sharaad dowladana runtii rugniga sharaad waxay muhiimadeeda saartay in sanadkan sidii ugu qurux badan looga qayb galo saan u ballan qaadnay markii hore oo aan barnaamijkan diyaarinaynay oo ahaa in ay helaan daadihin wanaagsan mataqaanaa martida Allah subhanahu wa ta'ala inay helaan guryo fiican ay degaan inay u dhawaadaan xaramka iyo madiinada labada xaram bay u dhawaadaan inay mataqaanaa degaan teendooyin fiican inay helaan mataqaanaa deganaansho wanaagsan oo ay ku kalsoonaada haddii la raali ka noqdo waad arkaysaan maanta shirkadda aan la joogno ayaga Djibouti aan isku sheegeen laakiin waxaan leeyahay waa diyaaradda heel walaal waa diyaaradda ay leedahay Soomaaliya waa diyaaradda aan ku faani karno oo kamid ah shirkadaha anaga waaweyn mid kamid ah oo hadda soo sheegay oo runtii naga mid ah waan u mahadcelinayaa madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo runtii dadaal badan u galay in shirkadani mar dambe dib ee lugooda dib ugu soo istaagto mas'uuliyiinta loo dhiibay aad baan ugu mahadcelinayaa si ay uga soo dhalaaleen inay banaanka u soo baxdo maantana dib mid qarsoon ma aha diyaaraddan waxaanu leenahay waa diyaaradayadii waa diyaaradii mataqaanaa heel walaal waa diyaaradii mataqaanaa qaranka Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda saddexaad waa diyaaradii mataqaanaa aanu ku faani lahayn inaan kulligayaga isku wada tagno shirkadaha annaga mataqaanaa hadda lagu soo biiriyay ee Freedom iyo Ocean iyo African Express inay xajka qaadaan diyaaradaha dhan waa noo furan yihiin laakiin haddana annagoo arkayna heel qaran ama heel walaal mataqaanaa waxaanu go'aansanay barnaamijkan waxaan u qabtay waxay ahayd inaan u mahadcelino wasaaradda awqaafta iyo diinta oo runtii juhdi badan gelisay inuu barnaamijkan meel maro mar hadduu meel marayna go'aankii ay dowladda gaartay oo 3,300
in lagu qaado xujaaj Soomaalida jeebkoodan uu ku haro xujaajta $600 sanadkan dawladda way maal marisay mar haday meel marisay waxaad garan kartaan $5,800,000 ayaa xujaaj Soomaalida jeebkooda dib ugu noqonayo waa lacag aad u badan oo dawladda Soomaalida runtii ay ugu deeqday ummadda Soomaalida inta rabtay inay xajka aado $5.8 million ee dhil ma qofka shakhsiga kaligiisa $600 u haraysa marka waad garan kartaan wanaaga ay leedahay ee ummadda Soomaaliyeed ay ugu deeqday dawladdeeda oo ay runtii tiri sanadkan waa insaas leeyahay sanaddan waxaan rajeynaynaa inay intaas ka sii weynaato ka baahdo xamlaadka ay ka sii bataan haddii Ilaahay raalli ka noqdo waxaanu ku gaari doonaa nabad iyo nolol haddii Ilaahay raalli ka noqdo Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala sidaanu ka baryaynaa waxaanu rajeynaynaa in wasaaradda awqaafta juhdiga iyo dadaalka ay gelisay in anagana aan gacan ku siino oo aan ku taageerno ku ayidno qof kasta oo Soomaali oo joogo oo raba inuu soo xaji kan joogayaba baaqanayo raba inuu mataqaan ducaas ka qayb qaato inaan kulligeeyaga sida ugu qurux badan aanu xajkan haddii Ilaahay raalli ka noqdo u meel marino wasaaraddan waxaa leenahay guuleysta wasiir dawlaha wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud intii kala shaqeysay guddigii mataqaanaa loo xilsaaray arrinta ayada ah oo runtii juhdi badan geliyay Dr. Maxamed Ibrahim oo madaxda u ahaa waxaanu leenahay waan idinkaga mahadcelinaynaa waan idin garab taagannahay haddaanahay shantaanadu mataqaanaa shirkadooda la siiyeyba dawladda waa uga mahadcelinaynaa waana mataqaanaa ku gacansiinaynaa waana ku garab taagannahay haddii Ilaahay raalli ka noqdo aad baan u mahadsantihiin tafaasiil badan uma baahna dawladda marka aan leeyahay $600 shacbiga dib ugu celisay oo loo daayay $3,300 ogtihiin sanadka Sacuudiga xogaa yar in wax la yiraahdo VAT ama VAT ay soo kordhiyeen oo taxation ah taasaa keentay moogi way ka sii yaran lahayd dawladda marka $3,300 haddaan shirkadaha anagoo og inay kharajaad badan jiro haddana waa ku aqbalnay barnaamijka asaga sidii dawladda u soo goysay sidii wasaaradda u soo goysay sidii madaxweynaha uga taliyay aad baan ugu faraxsannahay waxna kama qabno waanu fuliyeynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo insha Allah taala Djibouti waxaan ka rajeynaynaa inay dee hil walaalka runta ahaa ka dhabaysaan rajeynaynaa ay shacbiga Soomaaliyeed ay mataqaana daadiiso nabadna ku geyso haddii Ilaahay raalli ka noqdo nabadna ku soo celiso iyadoo mataqaanaa sharafteedii awalba ay lahayd haddana dib u sii xoojinayso Rahmaan Rahiim waxyaabaha ugu muhiimsan oo kale mataqaanaa shirkada ay kusoo saacidinayaan sanadka waxaa ka mid ah in maamulada Somaliland Jubbaland Puntland Koonfur Galbeed Hirshabeelle Galmudug dhammaan magaalooyinka sida mataqaanaa Hargeysa Boosaaso Garowe Kismaayo Baydhabo Gaalkacyo dhammaan laga soo qaaday waxaa ujeedada ugu weyn oo laga leeyahay waxay tahay wixii ka bixi kara toos u bixi kara sida Boosaaso iyo Garowe iyo Hargeysa toos ay u duulayaan u aadayaan Jidda kuwa kalena maadaama ay soo bixi jireen xamar joogi jireen muddo badan ay joogi jireen waxaan hadda ugu talagalnay in la soo qaado xamar wuxuu imaanayaa asoo diyaaradda kala raacayo markii loo diyaariyo fiisihiisa iyo howlihiisa kale dhan loo diyaariyo meeshuu joogo magaalada joogaa laga soo qaadaya Kismaayo laga soo qaadaya Gurceel laga soo qaadaya Cadaada laga soo qaadaya Luuq baa laga soo qaadaya ama Doolow waxaa laga soo qaadaya Baydhabo waxaa laga soo qaadaya Beledweyne waxaa laga soo qaadaya mataqaanaa Gurceel iyo Dhuusamareeb toosaa loo keenaya mataqaanaa xamar isla diyaaraddiisa soo ay joogto ayaa lagu sii qaadaya waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo sanadka lagu soo kordhiyay xajka haddii Ilaahay raalli ka noqdo ee dawladdana ay amartay ay ahayd wax alla wixii laga fulin karo in laga sameeyo suurtagal haddii Ilaahay raalli ka noqdo